kani waa Khaalid Cabdinuur Xuseen sheekadiisuna waxay ka duwan tahay dhammaan sheekooyinka aad ku daawataan aflaanta ama musalsalada Soomaalida waa qiso cajiib ah oo leh dhiirigelin aad u ballaaran Khaalid waxa uu ka mid ahaa ardayda sanad dugsiyeedkan ka galay kaalmaha ugu horeeya imtixaanka federaalka waxa uuna ahaa ardaygii labaad ee ugu sarreeyay guud ahaan ardayda u fadhiisatay imtixaanka sanadkan inkastoo uusan ahayn ardayga galay kaalinta koowaad haddana waxaan dhihi karnaa waxa uu ka saameyn badan yahay ardayda ka horeysay sababtan darteed Khaalid waxa uu ka mid ahaa ardaydii ku hartay imtixaanka dugsiga sare sanadkii hore ee 2024 sida arday badan ay sameeyaan Khaalid waxa uu awooday inuu joojiyo safarkiisa waxbarasho ama uu ka niyad jabo waxbarashada dalka balse intaasi oo dhan ma uusan sameyn ee mar kale ayuu dib ugu laabtay fasalka 12aad isagoo ugu dambeyn xaqiijiyay yoolkiisa sidoo kalena ku soo baxay kaalinta labaad ee sanadkan 2025 Khaalid waxa uu tusaale nool u yahay qof kasta oo isku dayga koobaad ku fashilma inuusan isdhiibin ilaa uu la yimaado dadaal iyo isku dayo kale oo badan Titoreysa Idil Cawil Cilmi ayaa maanta ku casuuntay Khaalid Cabdinuur xarunteeda Care for Soul iyadoo ku dhiirigelisay nafurnimadiisa iyo juhdigiisa uu dib u geliyay waxbarashada iyo dulqaadka uu muujiyay sidoo kalena waxa ay guddoonsiisay shahaado sharaf maanta xarunteena Care for Soul waxa martii inoogu ah wiilkeyga Khaalid Cabdinuur Xuseen oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee sanadkan ku guuleystay imtixaanaadkii dawladda galayna kaalinta labaad haddaba maxay tahay sababta qaaska ah oo casuunay Khaalid oo ahay ardayda dugsiga sare ee sanadkii hore ahaayeen kuwii aanan guuleysanin balse sanadkan noqday kuwii guuleystay qaas ahaan ku baasay kaalinta labaad soo dhawow Khaalid waa kaaga mahadcelinayaa casuumadeena maadaama aad aqbashay su'aalaha yar arab inaan ku weydiin maxay tahay in marka hore rabnaan la wadaagtid dareenkaaga bulshada la wadaagtid iyo heerkan markii aad gaaraysay waxyaabihii aad ku tashatay ama aad go'aansatay si aad ku awoodid guushan weyn inaad gaartay adigoo soo martay guuldaro dad badan ee la hari lahaayeen aad iyo aad horta anigoo ku bilaabay magacayga Khaalid Cabdinuur Xuseen waan ku dhawahay xarunta Care for Soul dal dheer kadib horta alxamdulillah waa ku faraxsanahay guusha maanta gaaray maana rajo dhigan horta guuldaro inaa wax qaldan wax masaale horta sax waa jab waa soo maray laakiin maan quusan ismin jibin dadaalkeen horaagsiyo maanta waa kana kaan wad ardayda anoo soo muuqday alxamdulillah Khaalid ma nala wadaagi kartaa qofka ugu horeeyo ama qofka labaad ee kugu caawiyay inaa heerkan gaartay ama guushan qaaday waa hooyadii macaan hooyo Muxubo Maxamed Cali ala kugu mahadcelinayna teeda kalena bulshada Soomaaliyeed waxa uu sheegaynaa ku dayasho wacan oo noo bilaabay Khaalid inay ku daydaan ardayda Soomaaliyeed inay niyad jabin kulligeen guul ay rajeynayaan maadaama kaalinta labaad ka gashay imtixaanaadkii dawladda ee federaalka dugsiga sare xarunta Care for Soul waxay kula jeclaatay inay guddoonsiiso shahaado sharafkan yar oo ugu talagalnay inay dhiirigelin ku noqoto ilmaheena kale ama ardaydeena kale Soomaaliyeed inay dhiirigelin u noqoto u mahadcelinayaa xarunta Care for Soul iyo Titoreysa Idil oo guddoonsiiyeen shahaadadan waxay in ku doontaa dhiirigelin iyo ardayda dambe oo sanadka dambe imtixaan galeys oo niyad jab oo dhaceen inaan quusan macnaa erajo dhigan ee dadaalkooda hor ka sii wataan halkani waa xarunta Care for Soul xaruntii ugu horeysay ee nooceeda ah ee lagula tacaalo dadka qabatiimay isticmaalka maanduuriyaha lagana hirgeliyo Soomaaliya halkani ma aha xabsi ama goob lagu jirdilo dhibanaha ee waa goob uu ka helayo dib u kabasho dhameystiran waxaan sidoo kale u sameynaa bukaanka wacyigelin nafeed tababaro xirfadeed la talin caafimaad iyo ka dhaqista qabitinka maanduuriyaha Care for Soul saaxiibka dhibanaha wixii faahfaahin waxaad nagala soo xiriiri kartaan telefoonnada shaashada kaga muuqda